السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلامي لمانتينا من والبا joogtaan kusoo dhawaada muuqaalka maanta waa barnaamij cusub laakiin ilaa hadda magac ma lahan. Haddii aad u haysid magac ku fiican ama ku haboon commentiga ku soo qor. Waa barnaamij ka hadlaya waxyaabaha topka ah, top 5 oo kale. Laakiin ma soconaysa inaan u bixiyo top 5 maxaa yeelay mararka qaar waxaan soo qaadan karnaa 3 top 3 mararka qaar waxay noqon karaan top 7 macnaha mararka qaar 7 qiso ama 5 qiso marmar 2 qiso marmar 3 qiso marka top 5 mararka qaarna 3 qiso inaad soo dhigtid ama 3 shay aad ka hadlaysid waa laga fiican yahay. Marka haddii aad magac kale haysid ama magac ku fiican qaybta commentiga ku soo qor. Marka daawasho wacan. shaqo aad jeceshahay inaad ka shaqaysid waa wax adag. Waxay ka rabtaa dadaal dheer, waxay ka rabtaa dadaal badan. Haddii kale meeshii oo ha socoto ayaad ka shaqayn doontaa. Macnaha haddii aad rabtid inaad diyaarad kaxaysid, diyaarad wadid, diyaarad duulisid, waxaa laga rabaa inaad dadaashid jaamacad bla sheeko dheer. Haddii aad dadaali weysidna خلاص dukaan ama meeshii ilaahay kuu qor maaragti ayaad ka shaqaynay. Mawduuca oo barnaamijkan ama xalqadan ama muuqaalkan waxaa waaye dad jecel inay dad isku dayay inay samaystaan shaqada ayaga jecel inay ku shaqeeyaan waxa ay ayaga jecel yihiin xitaa haddii ay tahay fake xitaa haddii ay tahay been abuur xitaa haddii ay tahay iska dhigid waan ka shaqeynaa ani been xataa ha ahaato rajadaadii waa rumayn weyse dhib ma lahan fake ahaan u rumeey soco sanadka markuu ahaa 2015 waxaa soo baxay dhakhtar ka soo jeedo dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Malaki Love Robinson magaca fiiriya Malaki Love Robinson magac markaa maqashid ba'day shakiya ku galay laakiin dhageyso wiilkan wuxuu jiraa 18 sano jir asagoo 18 sano jir ah ayuu wuxuu noqday dhakhtar sidoo ku noqday ma ogi jaamacadu ka soo baxay waxbarashada goormo bilaaway 10 sano jir jaamacad goormo galay dhakhtarnimo waxa waa sheeko dheer way 6 sano 7 sano 8 sano kugu qaadanay inaad dhakhtar noqotid laakiin kan 18 sano jira wuxuu leeyahay wow dhakhtar way sidoo ku noqday ma ogi sidoo ku noqotay dhakhtarnimo ii sheeg I don't want to disclose your names. Okay خلاص ma sheegayo ku dhahay meesha aan wax ka soo bartay ma sheegayo war xitaa ereyga international si fiican ma ugu dhawaaqi karo marka waxa uu ku leeyahay dhakhtaran noqonaa dadkan daaweyna laakiin taas waxa ka daran dadka Mareykanka shacabka Mareykanka weligood waan la yaabay wax kasta way raacayaan wax kasta ay maqlaan way aaminayaan ninkan ama wiilkan yar 18 sano jira dhakhtar uu yahay dhakhtar waa uu ku dhahay isbitaal uu furtay isbitaal ma ahane meel yar oo isbitaal oo kale ah ayuu furtay خلاص dadka waa loo tagaa ma xanuunsan tahay okay Love Robinson u tag asaga khatar ah daawadaada asaga haay asagana meelo is dhibay inta laga haay okay 1 minute wuxuu fura Google-ha daawadaada Google-ha ku qoray asaga ma ku qoray Love Robinson ma ku qoray daawadaada Google-ha ku qoray Google uu gala trik daawadan gado nasiibkaada way haddii aad dhimatid ama haddii aad ku fiicnaatid daawada magaceed waa ku nasiibsa amal way ku nasiibsa ya moot ya xayaa labadaas mid marka wiilkan arintiis way faaftay magaalada way ku faaftay xataa wargeysyada Mareykanka xataa way maqleen waxay dhaheen okay ninkan wareysi inaan ka qaadno way inaan soo aragno wiilkan da'da yar Love Robinson inaan soo aragno way u imaadeen wareysi laga qaaday rabi wareysigii uu ku dhiiqday uu ku banjaray xitaa wuxuu dalbaday ina muuqaalka ama ina duubitaanka ina la joojiyo wait please iga joojiyo muuqaalka wax duubin If you could stop recording please. خلاص wuxuu dareemay ina oo sheekada waa isku imaaday xabsiga filinka xabsiga soo socda amal uu naxay wuxuu dhahay dharku iska dhigi wuxuu dhahay bas kaamirada hal mar joojiya mid kale marka oo dharka oo dhakhtarka uu xirnaya dharka oo dhakhtarnimada uu xirnaa shaarka cad uu xirnaa waa la duubay hortoodu ku siiyo kaamirada horteed uu ku siibooya uu siibi oo imaaday kaamiradu ku soo laabtay wuxuu dhahay anaka waxaan sameynaa shirkad aan leenahay dhakhaatiirta ayaan shaqo geynaa qofkii dhakhtar ah CV-giis iyo waxyaabihiis iyo khibrad intuu uu leeyahay anoo soo diro markuu noo soo diro waan wacnaa markuu imaado shaqan geynaa isbitaalada iyo waxaas ayaan shaqo uga helnaa shaqan u raadinaynaa saas waa ani dhakhtar miya yaa idin ani dhakhtar ah nay ميه إنكرادو قال لي خلاص يعني محلا أنا دكتور مي عر أيو إنها وجوشبي وش
I am not doctor sida ogtihiin journalistiyaasha iyo dadka wareysanay way jecel yihiin inay wax fafatishan intay ka keenaan su'aashiis inta laga keenaa inta ila ad خلاص in ad ka qiratid ina biilo tahay waa laga keensana xataa mararka qaar xataa waxay jiraan su'aash 3 mar lagu weydiina 3 jawaab laga yaabo marmar 3 jawaab inay ka imaato 3 jawaab kala duwan tusaale ahaan goorma bilowday sanadka wallahi waxaan bilaabay sanad 1800 bishii afraad iyo su'aash waxay ku dib waxaan ku dhahay inta goorma bilowday shaqadan wallahi waxaan bilaabay 1500 3 jawaab 3 mar su'aasha markay kugu soo celiyaan 3 jawaab marka aad bixisid tan ugu xun ayaga rabaan maaragta ay qaadanayaan jawaab taas laga dhigaa taasna waa sheeko dheer shaqadood taas inay wax maxaa inay gas iyo benziin inay dab iyo benziin isku daraan shaqadood way ayaga marka wiilkan su'aalaha way ku korbaasheen aan ku dhahay hatta meesha oo shahaadiyaalkiisa meesha ku dhigan darbiga hatta way fiiriyeen oo kan been way fake way soo fujiyeen waxay uu qarqarinay dhan way soo fujiyeen been kulli fake inuu yahay waa la ogaaday marka dan waxay sameeyeen hello police please come here ala tool police imaade waa la qabtay xabsiga la geeyay maxkamadda la soo saaray 20,000 oo dollar ganaaxa la ganaaxay iyo 3 sano xabsi dhakhtarka xabsigu noqday hadda u maleynaa qisada labaad waa nin jecel inuu noqdo askari yaraantiisa yani caloosh markuu ku soo baxay ala tool saanu dhahay saasa u maleynaa yaraantiisa dhan uu jeclaa inuu noqdo askari police officer booliiska maaragtay kuwa Mareykanka dadka bursanayaan mootada wata ama gaariga aytimay dadkaas uu jeclaa inuu saas noqdo laakiin way u suurad galaysay wax uu baran waayo iskuul ma gaarin jaamacad sheeko dheer marka maxaa xal ah internetka ka dalba alaabaha oo booliiska iyo waxaas askarnimada askari noqo Mareykanku weeyahay yaa ku garanaya yaa ku fahmay marka ninkan internet ku galay AliExpress ma la iyo Alibaba website-daas ma aragtay Amazon wuxuu raadsaday bas alaabaha oo askarta alaabaha booliiska isticmaalo sidii oo gacmaha lagu xiraay shaarada inta lagu dhigsanay samaacado hello yes I am coming waxyaabahaas ayuu soo gadgatay iyo wuxuu sameeyay mooto uu soo xaday intuu ka soo xaday adlay sheeg ninkan waxa la yiraahdaa Jeremy wuxuuna ka soo jeedaa dalka Mareykanka waa idin sheegay in Mareykanka dadka oo waalwaalan dhan meesha joogan marka ninkan dambiyada oo galay dhan noloshiisa waa iska dhigid askari mar walba la soo qabto dambigiisa yani 20 mar oo kale waa la soo qabtay maxaa laga soo qabtay askari iska dhigi dadku burbursanay stop shaqadiisa saasay ahayd mid kale dhibkiisa wuxuu ahaa dadka si xun ayuu la dhaqmay taas ayaa keenaysay in ay dadka dacwoodaan askari oo la yiraahdo Jeremy ayaa saas noo galay askarta Jeremy noo la shaqeeya anaga marka la baar qof Jeremy la askari policeman oo Jeremy la mana la shaqeeya askarta way yaabaneed baaritaan way raadayeen ninkan ugu dambeyn way soo qabteen waa la soo qabtay ganaax xabsi waa la deena uu ku celinaa ganaax ganaax xabsi uu ku celina yani naftu u keenay ugu dambeyn marka ay daaleen maaragtay maalin yani waxa lagu qabtay asagoo yani wadada traffic light maaragtay uu halaaway waxa sameeyaa okay ana policeman mihi somi maashu istaagay firin buu wataa dadku wax u tilmaamaya dadka oo traffic saas بوليس او اماده دب ولا خبطي هاي ولا وريست خلاص markii meesha waa la qabtay uu dagaalamooya dood marka waxay sameeyeen way qabteen saldhigga booliiska ayaa la geeyay waa la baaray waxa la arkay wax uu wato dhan wax fake ah way firinbada geedka inta ugu dhagan booliiska iyo boorsada yaris oo dadku u tusinayo yes policeman uu dhahay waxa soo dhan fake bustoolada uu wato fake mootada waa mooto la soo xaday asagoo dhan fake socdo ayuu ahaa sidoo kale waxa la baaray magaciisa systemka oo booliiska magaciisa ay baareen waxay ogaadeen 2001 2004 iyo 2013 iyo sidoo kale 2015 booliis ayuu iska dhigay yani 4 mar ayaa la qabtay mar walba wuxuu iska dhigaa policeman yani ninka mar badan ayaa la qabtay booliiska la dhigay yani xabsi la dhigi rabay maxkamadda la soo istaajiyay mar walbana wuxuu ku soo baxay kafaalad lacag uu bixina wala deena marka la daayo shaqadiisu ku laabana ugu yaraan waxa laga rabaa haddii lagu soo daayo kafaalad hada ka soo baxday khalaas maxkamadda ka soo baxday xabsiga ka soo baxday bax toos bax wax baro si aad policeman u noqotid yani dadaal maya
وصباحا ويو لعقنا ما كخاطو مشاهرة ما خاطو بس جعل وأخبى بس بوليس لماذا جعل وأخبى لعقنا ما خاطو يا بس وبحادتكو برسنا وقدام بين أذي سو قبقبينتي وحالله شن مرة أنكو خباني محنكو سماي كرنا شن مرة حبسي خاضو شن مرة على سوقبتي مركي شانات مية موجي خلاص على 5 سنة حبسي خاضو 5 سنة على حكم حبسي بيب موجي هدو صباحة شخديس مكلابنا مسوو توس دونا الله أعلم وأركد دونا لابد كون طبعا يتضودي ضلك مرايكان كبوليس كيسا وحي قبتين توغاس حافظ نفط أيو أوكاني marka maadaama ay dadka xaafadda tuugaas nafta u keenay waxay u dhigeen event fadhi yani barlamaan oo kale mikrofon booliiska dadka xaafadda degan dhan haye kaaliya aan idinka sheekeynay sida aan u qabanay tuugan dadka magaalada xaafadda maragtay dhan waa loo wacay sida oo loogu sheekeeyay sida loo qabtay iyo qofku ahaa iyo intuu ka soo jeedi علشان tuugan nafta u keenay muddo dheer ay bursanayeen marka waxay dhaheen okay hatta waxa la leeyahay dadka dhagooliyaasha maragtay hatta waa loo turjuma qof la keenaa dadka saas oo hadlay maaragtay luqadda oo dhagooliyaasha xataa waan tarjumayna okay dadkii meesha ayaa la isku keenay markii la keenay haweenay oo luqadaas tarjumayso luqadda oo ka hadla assalaamu calaykum markuu dhaha ninka way tarjumay kii dhagool ah luqadaas uu fahmaa marka haweenaydan waxay dhahday luqadaas waan aqaana aniga idin tarjuma dadka dhagooliyaasha ana u tarjuma yani waxay islahayd mar walba TV-ga waxa ka soo muuqda shaashada geeskan oo kale maaragtay qofa ka soo muuqda wax tilmaamay dhagooliyaashu way run ahaantii anaka ma daawana waxa soo fiirina hal mar ishan ku xatna bis ayad marka waxay isdhahday dadku waxaas ku mashquulayaan waxay u sheegoyaaba ma oga ina dad luqadaas luqad u tahay waxaas dad inay luqad u tahay ay fahmayaan ay daawanayaan waxay dhahday aniga tarjumay ma taqaana yes of course wala keeni wax la isku daraysay wiil 24 sano jiro sida loo tilmaamay ana yaabay ma aqaani luqadda laakiin inay macquul ahayn yani hatta waayeel old man marka Allah isaan ku lahaa ايش عيار ما وطن عنك سان ايش هذا محاويسس waxay isleed خلاص ma lagu fahmaayo old يعني tilmaam leh way luqadan waa khafiif waa sahal waa fudayd old man bas baby ay meesh ku dhintay baby يعني waxay isleed خلاص luqada tilmaam leh ku xirantahay run ahaantii mid kale tilmaamka luqada oo لغة الجسم body language tan Europe iyo ti Soomaaliya ti Carabta iyo ti Mareykanka isku mid maahan hatta tan dhagooliyaasha ma ya tan caadiga حتى تاس حتى اسكمت معان حد صومالي عدي خوف كلها او كتوغا واكتوغو يا واي لكن قال كذا ساس دهديت محو كفهمه تاس sidoo kale hindida saan haday ku dhahan kaadiya hees shaqo marka ku jirtid Europe saan hada dhahdid breega u socota ani mar walba hadan breeg aad rabo saan dhaha x خلاص shaqada waan ka baxay ayaga waxay taagin saan dheh marka meel dheer annaha marka luqadaha way لغة الجسم يعني ويكالدوين خفتان واحد هذا خلاص وحلا شيك أذي وأكو باصي دونتا وحي إسلاه ضد نقول ما إيماناي ويلا بماشي فرديي نقول وفيرنو وحوربا إنو فهمو هذا كان لغة دي سواي إنو فهمو ربا وحو فهمو وفيري وحلا إشي وقوسا waxay sheegaysay eventigii ama arintii meeshay ku dhamaatay waa la kala tagay lacagteeda la siiyay haweeneydii way baxday muuqaalku wuxuu ku faafay social media Facebook minray uu ku faafay war luqadeena ma ahan dhagooliyaasha wax uu soo qori karaan war luqadeena ma aha qoftan waxa sheegoos wax fake ah wax jirin waay yaa wax booliiska maqlay arinta kaali Allah kaali waa loo waxay fadhi kalan rabnaa ina tarjumaan u noqotid way iskaanti dhab waxa la maxaa ku geystay magaceed marka la baaray sawir badan ayaa la arkay mar badan ay arintan sameysay mar takhtaray iska dhigtay waa la qabtay mar supermarket inay ka shaqeyso banaankiisa dadka way burinaysay miya ma ogi almuhim qoftan boqolaal mar ay iska dhigtay qof ayada ahayn yani dadka qaar way jecel yihiin inay iska dhigaan dad ayaga ahayn maaragtay ku wax shukaansada oo kale haddan shirkadda ka soo baxay dadkaas oo kale yani taas bilow waya laakiin kuwan hadda aan ka sheekeynayno waa khalaas high level way dhaafeen yani khalaas waa yani sida muuqaalka hadda kor aan ka sheekeeyay nin
oo 20 sano miya 15 sano dadkiisa uga sheekeynay inuu yahay dhakhtar inuu ma dhakhtar muu aha inuu jaamacad dhameeyay oo dhakhtar noqday saas oo maleena almiim meel uu ka shaqeynay maxsuusta sheekada yani saas oo kale way dadka marka dad waxa jiro ku noqon jiro isku bedelayso خلاص شكان سوق بلاوها والله هذا شركة دبان جوجا هونو بعدين خلاص سيديس وكسوعنا هذا كوان ساسواي كوان ليفل هاي ليفل واي ما دا فكران هوين ايدان مركا ولا باري maxaa kugu kalifay madaraaj waxa bla arkay inay mar badan waxa sameysay dhab sheeko dheer kadib haweeneyda maxkamad ayaa la soo istaajiyay marka sida meesha ku qoran xabsi ayaa la dhigay laakiin muddada oo lagu xukumay kuma qoran qisada xigta waxay ka hadlaysaa wiil yar oo هذا ويل ير ما هذا ونين وايل ونين وين واي لكن نين كان يرانتيس أيو جعله إنه ترين وضع ترين وحلا ده يردن لوف أيو كوها محاي لوف وكل أنت وحترين لا ده ورهير حتى ترين ستيشن كماركتي أيو دقيقة هاي جوري ماشى أيو كرات سدي هبينكي حتى وحلا قداي هبينكي ماركتي جوريس وحكيالا ترين ستيشن ماشي ترين ماذا جوريس وكصباحها مرمر وإسكا إيمانا ترين ستيشن وإسكا فير سنة ماشو جوجا ماشو كعنتينا مخايد ماشو كطالع أيو كعنشينا ماشو ما أنتو ماشو فديا محايا وحو جعلي هاي ترين ماذا ترين إنو كحيو أيو جعلي هاي أوكي وح برو ترين برو كورسات خاضو شركة ترين ماذا الآت وح برو وإذن لا شخينا وح سمي مايا فيك أهان أيا نولشي ذا يعني كسعد سينا مدك لويل كان أصاقو ير ayuu tareen ku dhex dhuuntay tareemada dhaxdood ma aragtay waligiisu ku dhuuman jiray yaraantiisa film documentary dhan ayaa laga sameeyay qisadana ama jaceelkan uu tareemada u qabo wuxuu bilaabmay 1970 marka ugu horeeyay oo la qabtayna waa 1981 yani jaceel yaraantiis way yani jaceel oo hadda maahana jaceelka yaraantiis ayuu ka soo bilaabay hadda waa nin weyn waxa la rabay inuu khalaas noloshiisa bedelo khalaas tareemadan bul ilaasi bas noloshaada fiirso maya tareen maahina wax kala ma daba gala ninkan dareewal ayuu wuxuu ku noqday iska dhigid yani fake ma ahan shirkadda oo tareenada mala shaqeeyo mana yaqaano laakiin uu yaqaana tareenka tareen sida loo furfuro sida loo sameeyo wax ka khaldan kulli uu yaqaana war heer waxa lagu dhahay say dadka say u barteen ku tareemada wada oo stationka jooga say u barteen marmar خلاص يعني waxay taagin kan una la shaqeeya ya khbiri fasaxan aan aadi rabaaye sagaalkii oo kale ilaa iyo 12 bedelkay moodi kartaa tareenka meega qaban kartaa booskay magal kartaa yes of course uu gala tareenku wada dadka caadi uu wada uu geena listiga tareemada uu fiirina okay hadda xamaran tagay okay hadda maxaa waa inaan taga baydhabo uu ka xeena yani mareykanka way meel walba uu yaqaana systemka war waxa lagu dhahay 139 furo ayuu haystaa muftax furayaha tareemada albaabada shirkadda tareemada kulli uu haya 139 furo ayuu haystaa marka ninkan sidaan ayuu ku noolaa muddo dheer sidaan ayuu ku noolaa sidoo kale mar badan ayaa la qabtay asagoo tareenka wadaayo ama wadi rabo ayaa la qabtay waa la qabanaa okay raaligelin uu bixinaa خلاص waa la soo deena 2 maalin ama 2 bil 3 bil ayaa la xukumaa xabsi waa la soo deena meel kale ma aadayo dharkiisu gashanaa jaakada tareen dadka oo dareewalada tareenka ayuu soo gashanaa xataa moodaay tareenka bas ani stationkan jooga dadku akmar oo dareewalka tareenka waa kanaya uu akmara meesha dad ma shaqeena meeshu iska 24 saac meeshu jooga taas waxay ku cadeynayaan waxaan inay jirro yihiin maahan wax fudud yani qofka inuu nolol raadsan lahaa ترين ستيشن دران سو حرتا فرا وطا من ايش فرمب فرت ترينك agaarkiisa ay jooga 24 saac ninkan wuxuu ku fiicnaa dad dhibaato ma u geysanin mid kale waxa la rabay laakiin gaaladu waxaas ma yaqaanaan maadaama ay mar badan soo qabteen oo tareen soo ka xeer raba ama meeshaas lagu qabtay shirkadda tareemada waxa laga rabay ugu yaraan naxariis kaalay koorskan qaado bax 1 sano 2 sano ha ahaato soo baro anaka ka bixinayno hadhoodii bixi lacagta kiskis u bixi tareen wadooga soo baro kadib tareen meesha laga siiyo laakiin gaaladu waxaas ma yaqaanaan yani waxay ka baqayaan nin tareenkeena tuugnimo ku wada ma shaqo siinayna gaalada saas way naxariis ma yaqaanaan waxa laga rabaa inay baraan oo hadhoodii shaqo siiyaan tareemada khalaas asaga noloshiisa fiirsado wuxuu jecel yahay inuu tareen wado yani khalaas rajadiisa u rumeeyo ugu yaraan laakiin gaal waxaas ma yaqaano ninkan 2015 qisadiis waxa laga sameeyay film documentary filimkaas dhamaadkiisa waxa ku jiray ugu dambeyn qaybta ugu dambeys ma aragtay qayb murugo leh
music murugo leh asagoo oo jaakada siibayo la laabayo furihiisa maaragtay furihiisa xayeysiinta maxaa lahaa miidaaliyada furihiisa maaragtay tareen waay qolkiisa tareemo yaryariis oo design ah meesha usu saaran dariishada sawiro tareen qolkiisa waxaasoo dhan wuu tuuray wuu soo jejeexay kulli wuxuu dhahay khalaas tareen wax la dhahaay waan kala harnay film documentary laga sameeyey qisadayda Soomaan khalaas yani khalaas aanan saan ku noqday khalaas ani waa toobad keenay tareen daba ma iga maqlaysiin alaabtii wuu duubay dharkii jaakada oo tareemada dareewalada tareemada gashtaan kulli wixii dhan baaku kurida wuxuu dhahay khalaas waan gubaa misqashankan kurida khalaas mar damba migu arki kartiin meesha tareenka agtiisa khalaas tareen ayo ani waan kala war heer xataa wuxuu dhahay xataa haddii aan safri rabo tareen ma raacay salaam tareen waa isdhaafni okay filimka documentary-ga sidiisuu ku dhamaaday Soomaan dhowr bilood kadib waa soo qabtay asoo tareen kaxeen rabo qof ayaa bedelay qof ayaa qisadiisa weli gaarin filimka gaarin dhahay ay maanta Jaanis ma leedahay booskay ma galay waa ka qabana dib malan ana okay keen asoo tareenka kaxeen rabo dhab waa soo qabtay xabsi lagu xukumay yani khalaas ma dhaafay way illa an ka dhinto uu ku duqoowi yaraantiisa illa uu ka duqoowi asagoo 12 sano jir ah aan hubsada asagoo 12 sano jir ah ayuu bilaaway waxaas illa iyo maanta khalaas ma dhaafi kariyo waa noloshiisa saas marka dad saas ah ayaa iska jiro waxay ay ku dhagaan khalaas way ma ka fuqayaan muuqaalka intaas uu ahaa top 5 miyaams top 4 hadda 4 hal afar qisa waay top 4 maan dhahi karnaa ma ogi magac haddii oo ku fiican haddii aad taqaanid hoos ku soo qor marka haddii aad ka heshay sidoo kale la wadaag asxaabtaadi u share gareey subscribe haddii channelka cusub tahay ama subscribe haddii aad channelka cusub tahay ama aad ka heshid waxyaabaha aan soo saaro channelka marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam